cusub tahay subscribe deh sidoo kale share muuqaalka like saar. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب قيمها بدنا وكسو دوادا شيكذي لما قعب حدي بروغو إيو ميدب كورجعي. haddaba akhyaarta qiimaha lahow qaybtii lixaad ee sheekadii halkudhigeedu ahaa murugo iyo midabta kor jacayl waxaan ku soo qaadanay guulihiisii imtixaanka ilaa heer jaamacadeed. maantana waxaan uga hadli doonaa qaybta toddobaad ku biiristiisii kulliyadda cilmu nafsiga. haddaba dhegaystow georgiere wuxuu xilliga fooda ku soo hayaa u diyaargaroobayaa inuu geli doono mid ka mid ah kulliyadaha kala duwan ee jaamacadaha dalka, walow uusan garanaynin midda uu beegsan doono xilli ay ka harsan tahay bil qura. markii la furi lahaa iskuulladii iyo jaamacadihii ayaa dhammaan ardaydii ka gudubtay dugsiga sare waxaa loo soo dhejiyey kulliyadihii ay kala geli lahaayeen. qof waliba nasiibkii lehe george wuxuu nasiib u helay kulliyadda cilmu nafsiga inuu ku biiro, isaguna wuu ku farxay walow uu niyadda ku hayay inuu jeclaan lahaa kulliyadda caafimaadka. intii aan la gaarin xilligii furitaanka ayaa qoyskii george u wareegeen caasimadda labaad ee dalka Mareykanka ee New York, halkaasi oo uu ka geli doono kulliyadda cilmu nafsiga oo halkaa ku taalay. georgiere waa wiil afrikaan ah kana soo jeeda waddanka Zaire oo haddii aan sifayno sidan ah waa wiil madow meeldhexaad ah, laf iyo xoog leh, timihiisuna adag yihiin, san weyn. qofkii arkaana uu marka hore ka naxayo haddii uusan ku midab ahayn ama uu u ekeen. gaar ahaan habluhu aad bay uga baqi jireen iyagoo u malaynaya bahal, taasoo ay uga wacnayd dadka caddaanka ah oo aragtidooda ay ku yareed dadka madmadow. qaar baa u malaynayo madowga inuu yahay wasakh badatay oo aan go'aynin. ma oga in bini aadamka kala midab duwan yahay. ardayda qaar baa oran jiray please allow us to touch your body to know the reality, oo micnaheedu yahay fadlan noo ogolow inaan jirkaaga taabanno si aan u ogaano xaqiiqda. georgena wuu ka yeeli jiray codsigooda si uu u muujiyo dabeecad, iskana ilaaliyo inuu noqdo ninka kan oo laga dido dadkana ka dhaadhicinayay inuu waxani yahay midabkiisa caadiga ah, isagoo ku oranayo please don't surprise at me, this is my body color, oo micnaheedu yahay fadlan ha ila yaabina, kani waa midabkayga caadiga ah. haddii aynu intaa ku dayno georgiere sifooyinka khaaska ah iyo kaftankii kala dhexeeyey bulshada uu la noolaa, waxaa laga bartay inuu yahay nin bashaash ah, furfuran, dabeecad leh, taasoo uu ku kasbaday saaxiibo badan. waana wax looga baahan yahay qof kasta oo taga meel uu ku cusub yahay inuu marka hore isbaro bulshada uu la soo dirsay si uu ugula kulmo soo dhoweyn, qadarin iyo wixii la mid ah. georgiere waxa uu bilaabay waxbarashadiisii kulliyadda cilmu nafsiga iyadoo lagu yaqiinay dadaal badani ayuu la soo baxay firfircooni, isagoo durbadiiba ay dareemeen ardaydii iyo macallimiintii kulliyadda. george si xarago leh oo lala yaabay ayuu ku dhammaystay 2 sano ee hore, isagoo xilliga fasaxa ahna suuqa ka soo gadan jiray buugaagta sanadka cusub, dabadeedna sii herdin jiray markii kulliyadda la furana uu dhegaysan jiray
farxadda oo qura akhristow George dadaalkiisa kuma ekayn oo keliya barashada cilmu nafsiga waxaa kale oo ku biiray kulliyadda caafimaadka oo uu gelinka dambe dhigan jiray isagoo doonaya inuu kordhiyo aqoontiisa jaamacadeed si uu u noqdo professor jaamacadeed George markii loo furay kulliyadda sanadkiisii saddexaad ayaa macallimiintiisu dareemeen isla hadal aan caadi ahayn waxayna go'aansadeen in loo wareejiyo kulliyad kale oo maskaxdiisa lagu dejiyo maadaama midan uusan hadda uga baahnayn qalin jebin oo uu aqoon buuxda u leeyahay si loo badbaadiyo dhimirkiisa maadaama uu si aad isugu mashquuliyey duruus uusan waqtigeeda gaarin waxaana qof walba oo waxbarashada waxbaranayo looga baahan yahay inuusan isboobsiin naftiisuna ku dhibin duruus loogu talagalay in lagu qaato 3 sano uusan oran 1 sano ayaan ku qaadanayaa taasoo ah mid aan u fiicnayn waxbarashada caafimaadka iyo maskaxda intaba waayo intii aadan gaarin yoolkii aad hiigsanaysay ayaad caajisaysaa oo aad meel aan fiicnayn uga haraysaa sida daraaddeed waxaa kuu habboon in aad si dhexdhexaad wax u barato waxbarashadaada si aad u gaarto guusha kama dambaysta ah waa hagaag intaas waxay noogu soo idlaaday qaybtii 7aad ee sheekadii la magac baxday murugo iyo midabta kor jacayl waa halabuurkii abwaan Cabdullaahi Macalin Axmed Timcade iyo tabintii iyo diyaarintii Cabdullaahi Maxamed Cabdi CMC waxaan idin leeyahay intaan ku kulmi doono qaybta xigta sidaas iyo nabadgelyo كبقواي وبايدونا كوي كبيري ونفخل حبي بقلت كوي وباباونا كوي بريري وتكون بارجين كبقواي